kusoo dhawaada kaftanka dhacdooyinka toddobaadka. Dhacdooyinka aan barnaamijka dib ugu fiirin doono toddobaadkanna waxaa ka mid ah xaaladda fayraska corona oo ka sii daraysa, dhimashada oo ku dhow 1,000 qof, halka kaysasku ay kor u dhaafeen 30,000 oo qof. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan toddobaadkii hore ka baxsaday jeelkii uu ku jiray isla markaana soo gaaray magaalada Nairobi ayaa dib ugu noqday Soomaaliya. baadari kale oo reer Ghana oo ka daray baadarigii toddobaadkii hore ee yiri Kobe Bryant ayaan soo noolaysiinayaa talow isna muxuu la soo shirtay. Puntland iyo dowladda federaalka oo wali isku haysta imtixaanaadka iskuulada. dagaalkii Pelosi iyo Trump oo meel xun gaaray. qodobadaas iyo kuwa kaleba waad ku maqli doontaan. halkani waa Shaywaal Media toddobaadka iyo caalamka. aan ku bilownay xaaladda caabuqa corona ayaa ka sii daraysa tan iyo toddobaadkii hore. dhimashada ayaa ku dhow 1,000 qof, halka bukaanku kor u dhaafay 30,000 oo qof. shacabka magaalada Wuhan oo ah meeshii uu caabuqani ka bilowday ayaa dhammaanba la karantiilay. warar xan ah ayaa sheegaya in dowladda Shiinuhu ay ku fakarayso inay dilaan inta cudurka qabta si shacabka intiisa kale loo badbaadiyo. ama square inta magaalada ka qabtaan kadibna afarta dhinac dab ka geliyaan indhayortu waa dad waawaran. waxaa la sheegay in dhakhtarkii ugu horeeyay ee ka diga cudurkan uu isla isagii u dhintay. adduunka waxaa u daran adoo dhakhtar ah isla cudurkii aad dadka uga digaysay inaad u dhimato. dhanka kale cudurkan ayaa khasaare badan u geystay dalka Shiinaha, dhaqaalihiisii iyo dhalinyaradiisiiba. doob qaangaar ah wala cudur danka ma laha. baadari Ghanaiana ayaa sheegay inuu hayo saliid barakaysan oo ka hortagi karta ayuu yiri cudurka coronavirus. saliidan ayuu ku iibinayaa baadarigu 200 oo lacagta Ghanaiska alla yaa qoto wax ku cunay oo Afrikaan ahayn. baadarigan ayaa la weydiiyay inay dowladda Ghana ansixisay saliidiisa in kale, wuxuuna yiri uma baahna, aakhira ayaa laga soo ansixiyay ayuu yiri. dhanka kale dowladda Equatorial Guinea ayaa noqotay wadankii Afrika ugu horeeyay ee China deeqsiisa, iyadoo oo siisay lacag gaaraysa 2 milyan. baadarigii Ghanaiska ayaa dhaabo kuwan. anu lama yaabani ninka China oo 2 bilyan oo qof ah ama wadanka labaad ee dhaqaalaha adduunka ugu weyn 2 milyan ugu deeqay. waxaan la yaabanahay sida shacabka masaakiinta ee Equatorial Guinea ay ugu baahan yihiin lacagtaas. Equatorial Guinea ayaa ka mid ah wadamada uu farqiga weyn u dhaxeeyo tabaqada sare iyo tan hoose. dhanka kale cudurkan ayaa saameyn weyn adduunka ku yeeshay. askartii Mareykanka la karantiilay ayaa sii kordhaysa. ciyaarihii Olombikada oo laga cabsi qabo inay qabsoomi waayaan cudurkan dartiis. Talyaaniga oo sheegay kiiskii saddexaad ee cudurkan. adduunku waa qasan yahay. dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ka soo wajahay ayax. dowladda Soomaaliya ayaa adduunka ka codsatay in loo soo gurmado. nin batiisa u daran. dowladda Soomaaliya ayaa moodaa inay ka go'an tahay la dagaalanka anyaxa, iyadoo oo dhagax dhigtay xarunta la dagaalanka anyaxa ee magaalada Qardho. talow sida anyaxa oo la dagaalamayso bay al-shabaab oo la dagaalanto. xaruntan ayaa la sheegay inay noqon doonto meesha looga diyaar garoobo dhibaatada anyaxa, sidoo kale lagala dagaalo marka uu wadanka soo galo. waa sax, dowladdeenu ma ogola in dalkeena la iska soo galo. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo toddobaadkii hore ka baxsaday jeelkii uu ku jiray isla markaana soo gaaray magaalada Nairobi ayaa Soomaaliya dib ugu noqday. dowladda Soomaaliya ayaa kadib ka codsatay hay'adda booliiska adduunka Interpol inay ka caawiso soo qabashada Janan. bini'aadankii ayay ka ilaalin weeday inay wadanka soo galaan. sidee anyax
uga ilaalin talo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada Adama ee gobolka Oromada isagoo oo markaasi tusaale fiican u noqday madaxdii halkaasi isugu timid kadib markii uu xaqin u qaatay isla markaana nadiifiyay wadooyinka magaaladaas laakiin mudane ma nadiifisid magaalada Jigjiga madaxweyne Mustafa runtii waa nin hami weyn leh wuxuuna rabaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Ethiopia idinku meel hoose ayaad ka fiirinaysaan dagaalkii Nancy Pelosi iyo madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan meel xun gaaray Trump ayaa diiday inuu salaamo ayay Nancy xaaladdu meel xun ayay gaartay dhanka kale Trump ayaa guul weyn ka gaaray kadib markii uu aqalka sare ku waayay dambiyadii lagu soo oogay ee xilka xayuubinta laakiin nasiib darro darbigii uu ka sameeyay xuduudka Mexico ayaa shacab masaakiin ah laayay kadib markii ay qayb ka mid yihiin ku soo dintay markii uu guul meel ka gaaraba meel kale ayay ka fakataa waa hawlaha Trump toddobaadkii hore waxaan idin sheegnay inuu baadari reer Gaana ay yiri waxaan soo noolaysiin laacibkii geeriyooday ee Kobe Bryant haddaba toddobaadkan baadari kale oo isna reer Gaana ah baadariyaashii reer Gaana ayaa bariyahan soo dhigtay ayaa wuxuu yiri Kobe Bryant ma dhiman ee wuxuu iska dhigayaa inuu dhintay waa sheekadii Cabdi Ilay malas ma dhimanin maamul goboleedka Puntland iyo dawladda federaalka ayaa wali isku haysta imtixaanaadka iskuulada haddaba wasiirka waxbarashada isla markaana ah xildhibaan baarlamaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa yiri waxaan ku kala aragti duwanaanay muxuu ahaa imtixaanka fasalka 12aad gelitaankiisa Puntland positionkooda aragtidoodu waxa weeye inay yiraahdaan imtixaanka annaga qaadanayno wasaaradda muxuu ahaa waxbarashada dhexe muxuu ahaa oo imtixaanka agaasinto ma rabno inay aan wax la wadaagno inaan macluumaadka ardayga u sheegno annaga waxaan isagaasimayno qofkii aan niraahno waa baasi shahaado siiye annagana waxaan niri kaas macquul maaha marka in ay iyagu ismaamulaan oon annaguna keliya noqonaa rubber stamp oo shahaado keliya bixiyo macquul maaha in aan muxuu ahaa Puntland shahaado siino aysan shaqaysan lamida midkii shaqaystay iyadana fair maaha reer Puntland waa idinka garleeyahay soo garbaxa Goodax laakiin haddaan isweydiino deeqaha waxbarasho ee Soomaaliya xagee laga helaa yaa sabixiya waxbarasho waxaan helnaa ilaa 950 oo waxbarasho ayaan helnaa sanadkii inta badan waxaan ka helnaa wadamada Ethiopia iyo muxuu ahaa iyo Sudan iyo Masar xooggeeda waxaan ka helnaa adeer waxba meesha kuma haysaan maxaa Puntland ku haysataa waayadan dambe odayaasha Soomaaliyeed ayaa duulaanba aan ku hayay gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed balse toddobaadkan waxa aad loo hadalhayay lamaanahan waa 70 jir isku feereysay wiil dhalinyaro ah wallahi raggii godkoodii ayay biyo ugu soo galeen nala daawada waalida toddobaadka markiisnig wallahi niku caadi ma soo qabtay markiis wallahi waa libax dhalay war soo fariisaniyo war biyahaysi ba war ya Xuseen war yadiki kaar balisiye كارا وربيخ بيا نعلا بايو ايو حكم بايو فين ايو حكم ما عريسه والله هذه نجاست كل شيء سوا والله واي كرباش بايد كل لا دعيا وايد كرباش والله قاعد بيتيزا نجاسيه قاعد بيتيزا nala daawada
doqonnimada toddobaadka اسكعلك 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 wallaahi wankaasi mid naxaya ma balaq uu kaga siiyey ka yarka war bal maxaa isaga u geeyey laakiin aniga waxa ay igu daran doqonkan ilmaha yar ku fiirsanaya Soomaalidii social media ay qalad ka fahmeen daawadayaal barnaamijkeena toddobaadka waa naga intaan hawada dib u kulmi doono toddobaadka dambe aniga iyo bahda Shawaal Media waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo